waana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waar anigu axmed siilaayaa maanta waa isugu kin yeedhay waxaan nidhi waar waxaan u baahannahay taladii waynaga baxday mudane sacade ra'iis muxuu ahay to wasiirka ama ra-iisul wasaaraha loo yaqaano wasiirkayga gudaha arrimaha gudaha wasiirka khaarijiga ah wasiirka macdanta wasiirka difaaca kulligiina anigaa isugu kin yeedhay iyo madaxda baarlamaanka ugu sarreysa waar waxaanu isugu kin yeedhay waxa weeye waar nimayo waanu daalay war waanu daalayo container baynu ku xireen war mii joogaa kii faysala waa joogaa waa ka xaga fadhiyo war waa ku salaam faysalo waxa weeye war waanu daalay container baynu ku xireen marka arrin waxaanu maanta isugu kin yeedhay ka dhimanayd inaanu ka hadallo muddo dheer oo aad u fara badan arrintaa waxay tahay waxa weeye war intaanu ka raadinaynay war ilin khalad inu garaacinay UN-ta iyo caalamkeenu meelaha ku waaranay 22 sano xorriyad beenaanu raadinayno meel aan loogu baahnayn baynu ka raadinay marka anigu imiga waxaan soo jeediyey war waa inaynu ka raadinaa Soomaalida war qolyahan koonfurta ee Soomaalida ka goonay berigii inaga wax ku darsanay war kuwa waa inaynu ka helaa waa inaynu kuwa la hadalaa waa inaynu la fadhiisanaa oo la xaajoonaa waa inaynu u sheegnaa annagoonan doonin madaxweynenimo iyo caasimadna la siiyo iyo wax kaloo nolol kugu daraa in la yiraahdo waxa la yiraahdo referendum-ka ayo codka firiiga naloo qaado oo markaa dadka shacabka ay naga ogolaadaan haddii shacabka iyagu codkiisa bato in reer Hargeysa ay noqdaan dowlad khaas ah oo gooniyo u soo baxda markaa iyo Somaliland oo dhan dee arrinkaa maxaad ka qabtaanoo maxaa ayaa wax ku daray kuma wax ku daray waar anigaa wax ku daraynayo waar mudane madaxweyne waad mahadsan tahay oo arrinkaa waa arrin wanaagsan oo aad iyo aad uga shaqaysay dee waa idea naga maqnaydoo muddada 22 dee inankii dhashay 22 sano ka hor maanta reer buuba leeyahay oo carruurtiisiibaa meelaha yaacayse marka dee waanu ogolaanay laakiin shacabkii Somaliland seebaan uga dhaadhicinaa waxaanu la fadhiisanaynaa faqashti baanu ku noqonaynaa oo la fadhiisanaynaa oo weydiisanaynaa amar seebaan uga dhaadhicinaa waar faysalo way maqlayaa waar arrinkaa maahay wax kale tala kala halkeena waari dee haayo waad saxsan tahay saacadii ra'iisul wasaare dee arrinkan wuu wanaagsan yahay laakiin dee annagu waxaanan doonayn waar anigu waxaan doonayaa anigoo siilaanyaa qabiil kaliyaan madax u ahay qabiil baan u taliyaa Hargeysan ka taliyaa waar ku darsan mayno xoolaa 1960 baanu wax ku darsanay dee waa loogaatiina ka raacday waar anigu doonumaya qabiilada kale inuu taliye waar halka qabiilan ka soo jeedan u talinayay anigu taabay ila tahay idiyadu markaa iyaga in la weydiisto la yiraahdo waar noo codee arrinka maxaad ka qabtaan mayo shirkana iminku noo xidhan yahay biriban isu imaan haduu leeyahay waar anigu waxaan doonayaa anigoo siilaanyaa qabiil kaliyaan madax u ahay qabiil baan u taliyaa Hargeysan ka taliyaa waar ku darsan mayno xoolaa 1960 baanu wax ku darsanay dee waa loogaatiina ka raacday